madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhagax dhigay dugsiga hoose iyo dhexe ee Xawataako ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Dugsiga hoose ee Xawataako oo ah dugsi qadiimi ah oo soo jiray tan iyo xukuumaddii daaqliga ahayd ayaa markii ugu horeysay loo bixiyay aliyadii Soomaaliya ee Xawataako kaasi oo ahaa markaasi dugsi hoose iyo dhexe balse uu ku burburay dagaaladii sokeeye ka dhacay dalka. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka hadlay munaasabada lagu dhagax dhigay dugsiga ayaa sheegay in xukuumadda iyo dawladda haatan jirta ay muhiimad gaar ah sii doonto waxbarashada. aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waa ku faraxsanahay saakay madaxweynaha inuu dhagax dhigo dugsigii markii ugu horeysay la dhihi jiray Regina Ellen laakiin haddana Xawataako loo yaqaan dugsigan waa dugsi taariikhda Soomaalida khaasatan xilligii gumeysiga iyo kadib taariikh xoog la kule waxa ka soo baxay dad badan oo muhiim ah oo dalkan taariikhdiisa dhinac uga jira tan waxay kamid tahay maxaan ku sheegaa madaxweynaha iyo dawladdan hadda balantay qaadeen in waxbarashada la soo celiyo talaabtii ugu horeysay waad ogtihiin madaxweynaha inuu sanadkan ka dhigtay waxbarashada slogan la doonayo in wadankan hadii la rabo in hore loo kaxeeyo oo dhaqaalihiisa kor loo qaado waa muhiim in waxbarashada ay noqoto dhaxaadkii dhaqaalahaas ka xil lahaa saad maqlayseen waa waxbarashada mar haddii xirfad iyo aysan jirin waxaan kuu sheegaa skills oo dhalinyaradii oo wadankan dadka ugu badan ah aan la jiheynin wadankii dhaqaalihiisana aan la socodsiinin markaasi macno ma keenayso marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example ah kii ugu dambeeya ma noqon doono qaar kalena way ka horeeyeen laakiin tani annaga aad ay noo farax gelinaysaa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo rabo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo taasi aad aan ugu faraxsanahay madaxweyne waa mahadsantahay waan ku faraxsanahay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo isna ka hadlay dhagax dhigga dugsiga Xawataako ayaa sheegay in ay rabaan in laga faa'iideysto farsamada gacanta oo lagu baran jiray waagii hore dugsiga Xawataako. ujeedaan maanta waxaan halkan aan dhagax dhigaynaa dugsigii la oran jiray Xawataako oo aan doonayn in aan dib u dhisno dugsigan wuxuu noqon doonaa dugsi engineering iyo farsamo iyo noqon doonaa farsamo gacmeed runtii de waxaan ognahay aqoontu inay tahay horumarka umadeed inay tahay waliba bacdama dalka uu burbur dheer soo maray oo aan doonayn dib inaan u dhisno waxaan u baahanahay farsamo inaan dhalinyaradeena caruurteena barno si dalkan uu noqdo dal isku filan oo wax walba uu awood u leeyahay inuu sameeyo saas darteed waxa weeye waxaan doonaynaa inaan dhisno oo aan dib u dhisno dugsooyinkii farsamada. Axmed Suleymaan, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.